بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa MCH Galdugob maantay wuxuu ku soo gabagabay metrikii saddexaad ayaa la saaray maantay sidaad arkaysaan shubkii birri ahaa bas oo kore oo metrika saddexaad baa u haray sidii qorshaha lagu qaatay oo lagu ballamay gabdhihii wanaagsanaa ee muxsiniinta ee hawshan ka qayb qaatay ee qaybta weyn ka qaatay ee ugu dambeysay qeyr Allah ayna siiyo badan la soo koobi karin sidaad u jeegtaan maantay ayuu soo gabagabay metrikii saddexaad oo la saaray metrikii saddexaad shubkii kaliya u haray oo la saaray hadii alla idmo birri saasuu ku soo gabagabay saad arkaysaan waa metr saddexaadkii waxa saaran shantii qol saasay ku dhameystiran yihiin markii birri la shubo insha Allah taala shubka kali koreeba u haray oo metr saddexaadka ah intii kala hawshooda way soo dhamaatay hadda khayr Allah ayna siiyo waad u jeedaan in la isla socodsiiyo meesha wax marayaan gabagabada riboodka la siiyo si joogto ah la isku siiyo balanta ahayd iyo dhamaan xisaab celin wax cad inay halkaas ka soo baxaan insha Allah si shaqada u noqoto shaqo si socota hadii Allah awoodo la idmo aad iyo aad baan ku mahad celinaynaa sida mutadawacnimada ee xilkasnimada ee deegnimada ku jirto aad uga qayb qaateen hawshan oo aad uga geysateen mataqaana ficilka iyo runtii wax qabadka aad baan ku hambalyeynaa aad baan ku duceynaynaa wixina wax khayr badan Allah in ku bedelo intii wax bixisay inta soo wadana Allah barakeeyo Allah u laban laabo adduunyo aakhiraba waa meeshii u dambeysay hadii birri la shubo oo la saaro shubka sare shubka 3 mitir markii la saaro birri waa meeshii lagu ballamay in la gaarsiiyo shanta qol sidii ballantu ay noo sheegay in la imaan doono bisha January dhamaadkeeda qolada hay'adaha iyo wasaaraddu ay imaan doonaan laakiin meesha asla qaadanayso isku tashigii wakaas sidaad arkaysaan Allah in barakeeyo dhamaantiin Allah in barakeeyo sidaan iyo si kasii wacan baa inoo ballana waxa Soomaalidu ku maamada quraansho aruurtii mul cawaajida dadku hadday isku tagaan oo ma taqaana ay awoodooda meel isku geeyaan wax badan bay qaban karaan horumar ah sidaan iyo si kasii wacan baa loo baahan yahay in la isku tashado in la isku xirnaado in la isku baraarujiyo adduunyadana waxa horumarka lagu sameeyaa waa sidaan iyo si kasii dhow oo dadka ay u leeyahay cilaaqo iyo isku xir iyo wax maqal iyo isku tashi aad baan ku hambalyeynaa gabdhaha reer Maxamuud ee la dhabarta ee xilkasta ee qiimaha badan Allah in barakeeyo adduunyo aakhirada wixiina Allah barakeeyo arurta Allah in barakeeyo odayaasha Allah in barakeeyo maalka Allah in barakeeyo diinka Allah in barakeeyo adduunyo aakhirada liibaana khayr badan baan idin rajaynaynaa insha Allah taala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.